gudoomiyaha gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi oo qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Caynaba ayaa faahfaahin ka bixiyay shaqaaqa habeennimadii xalay ka dhacday magaalada Caynaba taasi oo u dhaxaysay ciidamada booliiska iyo dhalinyaro sameysay dhagax tuur waxaana gudoomiyaha gobolka Saraar uu sheegay in shaqaaqadaasi dhaawacyo dhagax tuur ah ay ka soo gaadheen taliyihii qaybta booliiska gobolka Saraar gaashaana Dhexe Xasan Ismaaciil Yuusuf Gacmayare iyo waliba laba ka mid ah ciidamada booliiska gobolka Saraar kuwaasi oo haatan xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Saraar ayaa sheegay in haatan xaaladda nabadgelyo ee magaalada Caynaba ay degan tahay waxaana uu bulshada magaalada Caynaba gaar ahaan dhalinyarada ugu baaqay inay nabadgelyada ilaaliyaan waxaan jecelahay inaan dhacdo yar oo xalay ka dhacday magaalada Caynaba aan dadka u iftiimiyo howlgal askarta oo ku jirta oo la eriyaysa dad tiro fara badan oo maqaaxi ama meherad laga shaaheeyo oo suuqa dhexdiisa Caynaba kala dareerinaysa ayaa dadkii dhagax tuureen dhagaxii ay tuureen taliyaha dakhar baa soo gaaray aan weyneyn oo fooda ah dhowr askari oo kalena dakharku soo gaaray laakiin wax weyn oo la buunbuuniyo oo meesha si kale loo rogo iyo dagaalo badan oo meesha ka dhacay ma jiro xaaladda iyo muxuu ahaa iyo nabadgelyaduba aad bay u degan tahay gobolka wax dhibina saaka kama jiraan wixii intii xalay ay ku koobnayd wax dambo ka dhacayna ma jiraan wixii dhagax tuuray ama dhib geystay waa laga daba tagi oo wax weeyaan kii dhibta geystay ayaa geystay laakiin wax kale oo xaalada buuran oo meesha ka jirta ma jirto xaaladda coronavirus-ka oo runtii adduunka oo dhan aafaysay inaguna aynu ka taxadirayno maqaaxiyaha waxaan farayaa iyo meheradaha lagu ururayo inaan saa loogu ururin ee laga taxadiro ee dadku guryahooda joogaan sidii ay ku tala bixiyeen gudida coronavirus-ku talooyinka caafimaadka ee ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadku iyadoo lagu dhaqmayo waana dadku awaamirta la soo jeediyay ay qaataan intaasaan farayaa oo fariin dadka u diraya nabadgelyada dhammaan guud ahaanna shicib iyo dowladba in la wada ilaaliyo annagu roolka iyaga aanu leenahay waanu ilaalinaynaa waanu ka soo baxaynaa laakiin ummadda dadweynaha degan magaalada iyaguna waa inay nabadgelyada ku xisaabtamaanay nala ilaaliyaan ciidanka booliiska ama ha ahaato degmada Caynaba dhexdeeda ama gobolka intiisa kaleba ha ahaato waxa weeyaan waxay ku jiraan waa ciidanku waa dadka ay dadku ku hurdaan ee nabadgelyadeena ilaalinaya ee lagu seexanayo ee idinka heegan idinku jira hadiya habeenba aan seexanayn waxaan farayaa dadweynaha in aanay ciidamadu markay u yimaadiyaan ama ha ahaato maqaaxi lagu urursan yahay ay kala dareerinayaan ama xaalad soo kordhay ha ahaadaan oo iyagu ka hawlgelayaan in lala shaqeeyaan farayaa dadweynaha sababtoo ah waxaan ka taxadirayaa sidaa xalay oo kale inay dhacdo maaha askari u shaqeynaya ninka shiidaya waa foolxumo weyn dadku waxaa ka taxadiraan Salabaan cilmi Siciid Salabaan Kiiko wararka Ariel TV magaalada Caynaba gobolka Saraar shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab